halkani maaha garoon lagu ciyaaro waa sixir dhiig lagu fuliyo xukunnada dilka ah ee dawladdu ay xukunto waa goob ay farxad iyo reyn ku dareemayaan ubaxa ku ciyaaraya halkan mar kale waa meel argagax iyo aan fariir badan marka uu arko qof kasta oo garanaya macnaha u dhaxeeya nolosha iyo geerida sawirkan ayaa xalay ilaa shalay galinkii dambe lagu faafiyay baraha internetka waa sawir muuqa sare aan wax badan ka muuqan balse ay ku duugan yihiin macno ka weyn inta laga arko si guud sawirku waxa uu muujinayaa ciyaal ku ciyaaraya barxad furan oo afartii ay ka taagan yihiin laakiin koobtani maaha meel u diyaarsan in lagu ciyaaro halkani waa iskuul boolisiya waxa ay daris la tahay xerada xalane waxa ayna kulaashaa xeebta hindiya ee marta muqdisho waa goobta ay dawladdu ugu tala gashay in lagu toogto dadka lagu xukumo ciqaabta dilalka ah si kale waa meel ay carruurtu u soo ciyaar tagto marka ay kanshada leeyihiin labadan sawir waxaa la kala qaaday shalay subaxii hore iyo galinkii dambe kan koowaad waxaa la qaaday subaxii hore waa 4 marxuum oo lagu fuliyey dilal qisaas ah afartuba waxay ahaayeen askar u shaqaysa dawladda waxayna hore u soo dileen saaxiibadoodii ay shaqo wadaagga ahaayeen sawirka labaad waxaa la qaaday galinkii dambe ee isla shalay waa carruur ku ciyaaraysa barxaddii ay toogashadu ka dhacday saacado un ka hor xilliga ay ku ciyaarayeen carruurtani waxay u badan tahay inaanay ogeyn halka ay ku ciyaarayaan haddii ay og yihiinna aanay faham badan ka haysan waxaa u dhaxeeya in galinka hore dad lagu toogto galinka dambena ay ku ciyaaraan markaad aragto tiirarkan iyo barxadda ay ka qotamaan iyo kala duwanaanshiyaha shaqooyinka ay hayaan waxaa kugu soo dhacaya meerisadii cabdulqaadir yemyem ee ahaa waxaana hay macaan iyo qaraar meel ku wada yaalla